وزير ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa shir jiraayad uu ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya galabta waxa uu ku shaaciyay in Soomaaliya ay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyay waddanka Kenya waxa uu sharaxay sababta dhalisay in ay xilligani xaaladda kala guurka ay ku jirto Soomaaliya ay dib u soo celiso xiriirka ay la lahayd Kenya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in labada dawladood ay ku heshiiyeen in la ilaaliyo xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal iyadoo oo lagu saleynayo mabaadi'da is-ixtiraamka iyo madaxbannaanida dhuleed fargelin la'aanta arrimaha gudaha ee labada dal ka dhaxaysa sinaanta wax wada qabsiga iyo nabad ku wada noolaanshaha hase yeeshee dad badan ayaa isweydiinaya sababta ay dawladda Soomaaliya dib ugu noqotay tallaabadii ay horay dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay joojisay xiriirka diblomaasiyadeed ee waddanka dariska aan la nahay ee Kenya waxa uu go'aankaas yimi kadib markii ay dawladda Soomaaliya soo saartay eedeymo ay ugu jeedisay Kenya inay fargelin ku hayso arrimaha gudaha ee dalkeeda iyo inay soo abaabulayso kooxo hubaysan isla su'aalahaas ayuu wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala waxa uu uga jawaabay sidan arrintan markii horeba ma ahayn dooq iska yimid waa la ogyahay duruufiyaha adag ee laga soo maray xiriirka labada dal waxaan ognahay in dawladda Soomaaliya ay joojisay xiriirka balse dib ayaan u soo celinay xiriirka isagoo hadalkiisa sii wata wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa intaas si raaciyay mar haddii dhibaatooyinkii jiray ay meesha ka baxeen sida ku qoran warmutiyeedka la isku afgartay waa in la isku ixtiraamaa daris wanaag iyo wada shaqeyn iyo wada noolaansho bogga Twitterka ee madaxtooyada dalka Kenya ayaa maanta la soo dhigay sawir muujinaya in amiirka Qatar uu booqday Kenya uuna la kulmay madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta go'aankan ay dawladda Soomaaliya ku sheegtay inay dib ku soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee la lahayd dalka Kenya ayaan wax saameyn ah ku yeelanaynin arrinta kiiska badda ee yaala maxkamadda ICJ sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo galabta shir jiraayad u qabtay warbaahinta 15 bishii December ee 2020 ayay ahayd markii ay Soomaaliya si cara leh u joojisay saaxiibtinimadii iyo diblomaasiyadeed kala dhaxaysay Kenya waxaana dhammaan diblomaasiyiintii reer Kenya lagu amray inay Soomaaliya uga baxaan 7 cisho gudaheed sidoo kale saraakiisha diblomaasiyiinta ee Soomaaliya ayaa laga dalbaday inay dalkooda ku soo laabtaan xilligaasi wixii ka dambeeyay waxa fashilmay isku day urur goboleedka IGAD ku doonayay in lagu xaliyo xiisadda ka dhex aloosaneed labada dal ee dariska ah haddaba adiga maxay kula tahay bisha Ramadaan waa bishii aqbalka sadaqada iyo waxaysiinta ficil kasta oo wanaagsan oo aad samaysaa ajar iyo xasanaad dheeraad ah ayuu leeyahay bisha barakaysan gudaheeda Transfer Galaxy waxay idiga caawinaysaa inaad qalbiga ka wada joogtaan waxaan kuugu bishaaraynayaa inaad khidmad la'aan aad ku dirsan doontaan bisha Ramadaan idinkoo isticmaalaya xaraf sireedka Ramadaan 12 soo diray soo gaadhay Ramadan Mubarak